أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخواني وأخواتي aad baan idiin salaamayaa meel kastoo dunida kaga sugan tihiinba. waxaa Rabbi tabaaraka wa tacaala noo ogolaaday inaynu soo gaadhno bilashadii bishii Ramadaan almubaarak. bishaasi qof kasta oo muslim ah oo qaangaadh ah oo wax kala garanayay waxay ku tahay waajib iyo farad bay ku tahay dushiisa saaran hadduu soo gaadho bisha inuu soomo ilaa qof cudurdaar sharci ah iskala mooye. sidaa darteed waxaynu isu dardaarmaynaa bishaas Ramadaan ee Rabbi tabaaraka wa tacaala dusheenna ku qoray inaynu ka faa'iidaysanno oo aynu Rabbi subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanno acmaasha wan wanaagsan ee loo baahan yahay bishaasi in lagu dadaalo. Rabbi baan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala waana soo gaadhsiiyey bilowgeeda in Rabbi tabaaraka wa tacaala noo ogolaado inuuna gaadhsiiyo dhammaadkeeda inagoo caafimaad qabna wabaagan iyo cudurkan Rabbi subxaanahu wa tacaala na dhaafiyey. waxaan leeyahay qof kasta oo muslima ka faa'iidayso bisha Ramadaan. laba siba waad oga faa'iidaysanaysaa. soomka maalinkiisa Rabbi subxaanahu wa tacaala kugu waajib yeelay. nabiguna calayhi الصalaatu wassalaam uu tilmaamay man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbihi. ramadaan hadduu bisho qofkii soo gaadhay ee muslima ee sooma isagoo markaasi Rabbi subxaanahu wa tacaala rumaysan ajir iyo wanaagna Rabbi subxaanahu wa tacaala ka rajaynaya. nabigu calayhi الصalaatu wassalaam wuxuu markaa tilmaamayaa qofka dembigiisii hore in la dhaafayo. waxaa kale oo markaa tilmaamaya nabigu calayhi الصalaatu wassalaam habeenkeedii markuu maalinkii qofku soomo acmaal wanaagsanna uu ku daro habeenkeediina man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih. ramadaan habeenkeeda qofka istaaga buu nabigu leeyahay calayhi الصalaatu wassalaam isagoo markaa Rabbi tabaaraka wa tacaala rumaysan ajir iyo xasanaad iyo ixtisaabna ilaahi subxaanahu wa tacaala weydiisanaya oo ka sugaaya dembigiisii hore waa la dhaafayaa buu leeyahay nabigu calayhi الصalaatu wassalaam. sidaa darteed qofka awoodi kari waaye maalinkii inuu soomo cudurdaarna sharci ana iska leh waxaan leeyahay yuusan hilmaamin ama yuusan maaragtay gefin in uu
habeenkii istaago oo uu tukado, hadduu xataa kari waayo istaagga inuu istaago, inuu fadhiga ku tukadaayi ayaa markaasi loo baahan yahay. ajirka iyo fadiiladaasi iyo maaragtay khayrkaasi qof kastoo muslima ha ku dadaalo siduu markaa rabbi subxaanahu wa tacaala ugu dhowaan lahaa. intaas ayaan dardaarmayaa bishan ramadaan. waxaan leeyahay ramadaan mubaarak, taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal. ilaahay subxaanahu wa tacaala dembigeenna ha dhaafo, cudurradana hana dhaafiyo. baaraka allahu fiikum wa jazaakum allahu khayran. salaamu allahi calaykum waraxmatuh wabarakaatuh.